السلام عليكم السلام عليكم سودو هذا سودو هذا سودو هذا السلام عليكم السلام عليكم سودو هذا السلام عليكم سودو هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته وايدين سلامي سلامة المسلم كان يكون سلامي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سودو هذا وحان كوضا هادلينا مانتا دولدان عاد ليدهين دولد بان لينهاي يا مدحوينه كوشيك بان مدحوينه نوعه marka waxaan ka wada hadlaynaa maanta dawladdan inaysan dawlad ahayn meel ay ka talisan inaysan jirin magacuyaalna ay tahay soo dhawaada dawladda micnaheeda waa inaan idin sheegaa waxay tahay iyo waxay ka gooban tahay soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada waa kusoo qabanaya iska sii baxeedo qofkii caytama wuu baxayaa qofkii caytama wuu baxayaa cay looma baahna iyo akhlaaq xumo idab u fariista qof kasta oo shakhsi Soomaaliyeed xaq ayuu ugu leeyahay inuu ka hadlo dawlad isku sheegtaan ee caasimadda magaalada Muqdisho dhex fadhida inaan ka hadalno xaq buu ugu leeyahay cid u diidi kartana ma lahan maya farmaajo aabahay baa liraa tuug maaha farmaajo aabahay baa liraa tuug maaha maxamed de tuug farmaajo aabahay baa liraa waa ka hooseeya walaalo qofka soo qoray farmaajo tuug weeye iska daa maxamed tuug weeye dheh aabahay waa ka hooseeya qabriga ku jira farmaajo asaa la yiraahdaa farmaajo asaga la dhahaa farmaajo lama dhaw maxamed tuug weeye dheh asaa idin khiyaamay asaa shacabkii Soomaaliyeed khiyaamay asaa shacabkii Soomaaliyeed been u sheegay asaa shacabkii Soomaaliyeed maxay ahayteen khiyaamay ee meel uga soo haray dalkii iyo shacabkii asaa meel uga soo haray maxamed farmaajo ha oranin farmaajo aabahay weeye qofka markuu ka hooseeyo uu dhintana waad ku dambaabaysaa soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu إيدا إسكسي بح عايو مباهنين سينا بلقن عايو مباهنين إسكسي بح سينا بلقن ومقع عسوة بدلت عايو مباهنين إسكبح إيدو إسكبح إيدو سحر كاغا إيو جنيهاغا ماشا لفادي مدحتو يدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وإنان كهذلنا وامحي دولت وامحي اسمامل أنا كوضا هذلنا ويه waa maxay dawlad waa maxay ismaamul ana ka wada hadalna dawladdu waxay tahay micnaheedu waa dawlad ka wada talisa dalka Soomaaliya oo dhan waa dawlad ka wada talisa dalka Soomaaliya oo dhan oo madax bannaan dawladda micnaheedu wata ismaamulna waxa weeye madax bannaan marka haysatid markaad ismaamushid ee aad isku maamus aad leedahay shacab iyo dhul aad haysatid ayaa dawlad noqon kartaa oo madaxweyne keensan kartaa oo madaxweynahaasna uu haysan karaa raas caseer ilaa iyo raas kambooni taas ayaa la yiraahdaa dawlad marka dawladdii maanta waxaa ka maqan xukuumad madax bannaan hal rukun baa ka maqan xukuumad madax bannaan okay dawladdan aad leedihiin dawlad baan leenahay Soomaaliyay horta dib isugu noqda dawladdan aan leedihiin dawlad baanu leenahay madaxweyne ku sheeg baanu leenahay dawladda xagee ka talisaa dawladdu xagee ka talisaa su'aal xagee ka talisaa ma Soomaaliya oo dhan bay ka talisaa mise caasimadda magaalada madaxda Muqdisho ee dhex fadhida caasimadda xitaa kama taliso waxay ka talisaa filla Soomaaliya ayay ka talisaa xitaa caasimadda Muqdisho ee magaalada madaxda Soomaaliya kama taliso
marka dowlad ma aha riwaayadda ha isku sheegina madaxweyne ma aha waxa weeye dowlad goboleed caasimadda banaadir waxaa xoog ku haysta ee madaxweyne ka ah ee maamulka gacanta ku haya waa khayre duufle waa khayre duufle waa khayre madax sabuul waa khayre dhurwaay waa khayre af dhurwaay ayaa madaxweyne ka ah caasimaddii muqdisho dowlad ma haysano marka dowlad ma haysano soomaaliyey dowlad ma haysano waa inaan raadsanaa marka waa inaan raadsanaa xukuumad madax bannaan iyo dowlad waa inaan raadsanaa xukuumad madax bannaan iyo dowlad waa inaan raadsanaa dowlad madax bannaan waa inaan raadsanaa raas caseer iyo raas kambooni dowladda aad isku madadaalinaysaan meelay haysatana maleh meelay ka jirtana maleh taasna caddeynteeda waxa weeye dowlad hadday jirto dowlad goboleedyada intay cararaan imaaraadka ma tageen imaaraadka ma u qaraabo tageen imaaraadka ma tageen ayagoo ah dowlad goboleed meel istaagay iska dhigahaya dowladda aad ku sheegaysaan xamar fadhidana aan ictiraafsanayn marka ma dowlad baa dowlad maaha marka dowlad ma aha xukuumadna ma aha soomaaliyey been yaan ilii sheegin dowladna ma haysano xukuumadna ma haysano dowladna ma haysano xukuumadna ma haysano ifaham sheegta kala saara caqligiina ha shaqeeyo meesha waxa weeye khayre duufle wuxuu ka yahay banaadir state waa guddoomiyaha banaadir state waa guddoomiyaha banaadir state idin sheegaya prime ministerna ma aha madaxweynena ma jiro prime ministerna ma aha waa guddoomiyaha banaadir state waa guddoomiyaha banaadir state dowladdan meel ay ka taliso ma jirto soomaaliyay runta isku sheega riwaayadda ha dhigina riwaayadda ka baxa waxa la yidhaahda dowlad ma jiro waxa la yidhahda madaxweyne ma jiro waxa la yidhahda prime ministerna ma jiro waxa la yidhahda madaxweynena ma jiro waxa la yidhahda prime ministerna ma jirto wax maxay ahayteen sharci iyo ismaamul iyo xukuumad iyo dowladna midnama ka jirto soomaaliyay dib isugu noqda taasi waa mid baarlamaankan aad hadal haysaan baarlamaan ma jiro baarlamaan sidii loo kala dareeriyey weeye khayraana kala dareeriyey iyo midkaad ku haysaan madaxweyne ku sheega ah ayaa kala dareeriyey waxa la yidhahda baarlamaan ma jiro baarlamaankan kama ay taliyaan raas caseer iyo raas kambooni soomaaliya oo dhan baarlamaankan kama taliyaan haddaa idiin sheegayaa soomaaliya maadaama ay dowlad jirin maadaama ay xukuumad jirin yay baarlamaan u yihiin marka yay baarlamaan u yihiin waay yay baarlamaan u yihiin waa idinka indhaha xanjiiska saarahayee baarlamaanka la sheegahayaa ee dowladda federaalka ah ama xukuumadda federaalka ee madax bannaan waa baarlamaan raas caseer iyo raas kambooni u ah baarlamaan maadaama magaalo madaxdeena muqdisho ay tahay waxaa weeye baarlamaan ka soo baxaya waa in raas caseer iyo raas kambooni uu baarlamaankaas ka shaqeeyaa miyuu ka shaqeeyaa kama shaqeeyo kama shaqeeyo kama shaqeeyo marka soomaaliya riyaa ku jirtaane riyada ka baxa ee ordaha samaysta maamul ordaha samaysta dowlad madax bannaan ordaha samaysta kala dambeyn sharciyad kala dambeyn samaysta ordaha soomaalinimo isugu imaada ee maamul iyo dowlad samaysta iyo qarannimo samaysta idinkoo soomaaliya oo gacmaha isqabsada waxaan dowladna ma aha meelna kuma taliso meelna kama taliso xukunna ma haysato waa gaangeystaro waa tuugo jawaasiyiina ay jaajuusiina u yimid dalka soomaaliya inay iibsadaan waa tuugo jawaasiyiina u yimid dalka soomaaliya inay iibsadaan haddaa idin sheegaa dalkii soomaaliya inay iibsadaan uu qalinka loogu soo dhiibayna maxamed ninka la leeyahay maxamed ee maqaarsaarka ah ee nilii soo dilindileeyey qalinkiis in lagu saxiixo dalka soomaaliya in la iibsado magaciisii dalka lagu iibsado khayrana waa nin dilaalah
waxa weeye nin oo raba maxay ahayteen inuu ku qaato commercial ka qaato nin waxa weeye sharing inuu ka qaato raba nin waxa weeye tuuga oo dalka iyo shacabka iyo dadkaba midna u naxaynin oo tuuga ee dalka iibsaday ee sooma iibsaday sooma oyalna iibsaday ee sharing ku leh marka wuxuu rabaa dalkaas markii la iibiyo ee magaca maxamed farmaajo lagu iibiyo lagu saxiixo inuu asagana sharingkiisa ka qaato asagana inuu sharingkiisa ka qaato marka dalka yaa iska leh Soomaali baa iska leh dalka yaa iska leh Soomaali baa iska leh dalkiini ayaa beec loogu jiraa oo la iibsaday dalkiini ayaa la iibsaday laguna heshiiyey in la iibiyo ka bacdina laga tago ayagoo baasaboor ajnabi haysta markay dalka iibiyaan cadow idin keenaan Kenyaati iyo Ethiopia idin keenaan dalkiina ay ku saxiixaan inay u kala qaybiyaan Kenya iyo Ethiopia inay idin kaga baxaan marka Soomaaliyay waa jiiftaan hurdada ka toosa Soomaaliyay waa jiiftaan hurdada ka toosa dalkiini ayaa la iibiyay laguna saxiixay in la iibiyo taasna cadeynteeda waxa weeye Kenya inay Jubaland la wareegtay maantana Kenya inay laynayso shacabkii Soomaaliyeed ee Jubaland ee Buulaxaaw ay ku laynayso ayagoo ciidankii Kenyaatiga iyo Mareykankii askartii la dagaalamayayna maxay ninkii la leeyahay Axmed islaana maahan Axmed Madoobe uu ku dhajiyay askartii inay yihiin al-shabaab asagoo al-shabaab Axmed Madoobe asagoo al-shabaab inuu ciidankii la dagaalamayay ee Kenyaatiga iyo Mareykanka xoreynayay uu ku shabadeeyay inay yihiin ciidankaas inay yihiin al-shabaab taas waxaa cad cadeynteedana waad aragtaan Mareykankana raalli buu uga yahay in dalka ay qabsadaan Kenya Jubaland inay Kenya la kacdo hadda idin sheegaa Soomaaliya Axmed Madoobena raalli buu uga yahay waa jawaasi jaajuusa ee Jubaland loo soo dhaweeyay shacabkii Soomaaliyeedna guryuhu kala baxooya asagana laynaya qofkii askari Soomaaliyeedna ee la dagaalamay ama iska difaaca dhulkiisa difaacana wuxuu ku shabadeynaya inay yihiin al-shabaab asagoo al-shabaab ka soo jeeda Axmed Madoobe asagoo ka soo jeeda al-shabaab in lagu xasuuqo askartii Soomaaliyeed uu ku kooleeyay dalkoodii difaacayay shacabkoodii difaacayay ku kooleeyay inay yihiin al-shabaab Soomaaliyay markii waxa weeye waxaan la sugayaa Prime Ministerka Ethiopia intuu salka dhulka ka dhiganayo intuu shaqooyinkiisa fushanayo sheekadu dalkii Soomaaliya waa la kala googoostay waxay sheegayeen way soo baxeen baarlamaankiina waa la kala dirayaa siday rabayna ka maamulanayaan labadan rag ee wadaagta magaala madaxda Muqdisho raba inay ku abuse gareeyaan shacabkii Soomaaliyeed inay ku dhibaateeyaan shacabkii Soomaaliyeed waxa weeye baarlamaankii waa la kala dirayaa intay rabaan bay keensanayaan maamulkiina ayaga la wareegaya waxaana maamulka Banaadir State la wareegayana khayr duufle ninka magaca sabuulka leh ninka afka dhurwaayga leh ninka wajiga dhurwaayga leh ee tuuga ayaa la wareegaya Banaadir State ileen meel kale ma xukumo wuuna cadaystay wuxuu idinku yiri ninkan Maxamed waxba meesha kama aha aniga dawladda anaa kala wada meesha anaa maamulka gacanta ku haysta أنا dadkan maxay tahay shacabkan magaalada Muqdisho gacanta soo kashanaya ana maamulahaya kamana degayo wuu cadaystay kursiga kama degayo idin yiri anigaana idin ku maamulaya ahi wiilkan magaca ila wadaagta Maxamed Murursade shaqa kumuluhu ku yiri meesha maamulkeeda ana kala wareegu idin yiri Soomaaliya ana kala wareegay maamulka Banaadir State marka Soomaaliya idinka idin taala heeriya in saaran saasaga qaadi lahaydeen heeriya khayr duufle ninka madaxa sabuulka leh khayr duufle iyo islaanta lugaha xun lama jaaxun heeriyadoodii baa idin saaran idinka idin taala saasaga qaadi lahaydeen idinka ayay idin taala sidaad heeriyada isaga qaadi lahaydeen sidaad maamul u samaysan lahaydeen sidaad xukuumad u samaysan lahaydeen iyo sidaad dawlad u samaysan lahaydeen idinka idin taala marka iyo sidaad cadawga isaga dulqaadi lahaydeen iyo sidaad cadawga isaga dulqaadi lahaydeen taas waa mid waxa kale oo idin sheegaya Soomaaliya waxaan u maleynayaa nin la yiraahdo Faarax Macalin la yiraahdo hadda aan u maleynayaa inuu ku sugan yahay magaalada madaxda Muqdisho
من اللي يراهدو هبل دعالي يسو قرى هالكان محال يراهده midka haysta baarlamaanka ayaan dhaweyd qudbeynaya in cabdi shakuur ka hadlaya ii sheeg inay hebel barre ducaale horta labadaas nin waa laba nin dowladda Kenya shaqo u haya dhageysta Soomaaliya labadaas nin waa laba raba dowladda Kenya commission ku leh shaqana u haya midna siyaasiyiinta Soomaaliya ee Kenya joogta qoorta ku dhaga si fiican dhageysta midna xamar loo soo diray faarax macallin soo ma ahan kii dhahaya dhowr bilood ka hor maxamed cabdullaahi waxaan moodaynay libaax maantana wuxuu noqday chicken dhowr bilood ka hor ninkii dhahaya soo ma ahayn maxamed farmaajo waa chicken waxaan moodaynay libaax soo ninkii ka dhahaya soo maaha Kenya Soomaaliya bal idageysa Soomaaliya okay waxaan idin sheegayaa marka sababta marka uu yimid xamar iyo sababta uu faaninayo labada nin uu amaanayo laba shakhsi ee qaraab tagayna uu caayahayo ana idin sheegaya Soomaaliya idageyso Cabdi Wali Gaas iyo odaga Axmed Madoobana uu caayahaya idin sheegaya marka ninka maxamed ee maqaar saarkan iligu soo dileeyay ee dalka iibsanaya ee iligu soo dhiibay beentan iligu soo sheego yiri madaxweynuhu idin yahay ayuu rabaa dalka inuu kaga sixido Kenya inay la wareegto Jubaland dhageysta inuu kaga sixido Kenya inay Jubaland la wareegto kow uu ka sixihayo labo inuu Soomaalidii cuqdad kala geliyo oo cuqdad qabiil kala geliyo oo hawiye daarood la isku xasuuqo asagoo la soo dirsaday ee dawladda Kenya soo dirsatay faarax macallin kala leeyahay asagoo raba Soomaali inuu isku diro si isaga uga dhex faa'iideystaan Kenyaatiga ee Jubaland u qaataan asagoo raba Soomaali inuu qabiil isugu diro asagoona qabiil u taagnayn waxa la yiraahdo qabiil la yiraahdana u taagnayn ee hungurigiisa iyo calooshiisa u soo shaqo tagay xamar oo u fadhiyo inuu isku diro shacabka Soomaaliyeed inuu dawladdan beenta nala soo dilay amaano dad kalena uu maxay ahayd wax ka sheego okay maxaa xaaraantinimeeyay Gaas iyo Axmed Madoobe maxaa xalaaleeyay Khayr Duufle iyo Maxamed Farmaajo su'aal baa idin weydiinaya Soomaha Khayr Duufle ninkii Soom Oil iibsaday inuu tuugyaa idin sheegaya laba jawaasiina tuugaynayeen idin sheegaya Soomaha Khayr Duufle ninkii Soom Oil iibsaday ninka ilaa hadda sheerinka qaato Soomaha Khayr Duufle ninka saxiixay Jubaland in la saxiixo ay qaataan ee qaadato Kenyaati ninka saxiixay soo Maxamed Mursadama soo Maxamed Mursadama ninka uu ka saxiixayo ama saxiixay inay Kenya qaadato Jubaland Soomaaliya dhageysta marka labada nin ee tuugada jawaasiinta ay seediyaashiis ku ah ayuu annaga noo amaanayaa laba kalena waxba ka sheegayaa bal fiiriya Soomaaliya arintaanan idin fasiraya indaas ku haysataan dhageysa dadkiina qabiilka isku aflagaadeynaya ee neefkan maxay ahaayeen idin yimid ee raba shaqada soo tigo la soo shaqo tirsaday ee la yiri canshuurtii shacabka Soomaaliyeedna soo qaado kana soo saxiix neefkan magaca ay la wadaaga dalka Soomaaliyeedna ka soo saxiix faanina beenna u sheeg dalka Soomaaliyeedna gacanta noo soo gali ayaad waxaad ku shabadeynaysaa inuu yahay nin qabiiliyana faarax macallin iyo nin kale leeyahay ina barre ducaale qabiil maaha waa niman Kenya u shaqeeya waa niman shaqaale Kenya waa niman dalka Soomaaliya raba Kenya gacantiina u galiyaan waa niman raba dalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya inay qabiil isugu diraan si fiican dhageyso inay qabiil isugu diraan ka bacdina dalka Soomaaliyeed ee qaadato Kenya iyo Ethiopia ay kala goosato kabacdina ay naga faa'iideystaan Kenya iyo Ethiopia inay kala goostaan oo la yiraahdo ma heshiin karaan maadaama intaas oo sano aan qarash siinaynay maadaama intaas oo sano aan ku dhex jirnay maadaama intaas oo sano aan maamul rabnay inaan sameeyno maantana uma sameyn karno qabiilkii shalayta isku laayeen ayay maantana isku laayeen hal la kala qaybiyo dhexda lagu kala dhufto Soomaaliya dhexda lagu kala dhufso hal la kala qaato inna Kenya ha qaadato inna Ethiopia ha qaadato Soomaaliya aqligiin ha shaqeeyo Soomaaliya ay aqligiin ha idin shaqeeyo laba nin oo iibsato oo saxiixdana waa la keenay
laba nin oo seediyaal isku ah oo tuuga ahna waana lii keenay haddaa idin sheegaa laba nin oo tuuga ah oo dowladdii saxiixda maxay ahayteen dalka iyo shacabka soomaaliyeed ku wareejisa dowlado gumaysi ahna waana lii keenay ee seediyaal isku ah ee ninna aanan waxba ahayn ee ninna u ordahaya dalka soomaaliya inuu gacanta u geliyo uu shaqaalo uga noqdo uu maamulkii la wareego dalka soomaaliya in kenya iyo etoobiya uu u dhiibo oo gacanta u ka saaro uu asagana shaqaalo ka noqdo uu madaxweyne ka noqdo uu asagana maamulo sida gelinka lixaad oo kale marka soomaaliyay fakera labadaa nin waa laba beenaalayaal waa laba khaa'in waa laba nin u soo istaagay dalka soomaaliya inay kenya uga biiciyaan waa niman kenyaati soo dirsaday waa niman kenyaati u shaqaysta waa niman shaqaale kenyaati u ah waa niman raba dalkii soomaaliya inay kenya iyo etoobiya gacanta u geliyaan runta isku sheega soomaaliyay runta isku sheega siyaasadda niligadan leeyahay garta waxa la yidhaahda qabiil ma jirto dalka soomaaliyeed waxaa iskale soomaali gobol kasta oo soomaaliya waxaa iskale dalka soomaaliyeed qaaradda soomaaliyeed waxaa iskale shacabka soomaaliyeed si fiican ii dhegaysta soomaaliyeed qaaradda soomaaliyeed waxaa iskale shacabka soomaaliyeed qaaradiinii ayaa la rabaa in la kala goosto oo dhexda lagu kala dhifto ina ay kenya qaadato ina ay etoobiya qaadato marka waxaa idin leeyahay soomaaliyeed waad hurdaani hurdada ka kaca midda kale waxaan rabaa inaan u sheego dadka degan magaala madaxda muqdisho shacabka degan baan u sheegahayaa iyo xildhibaanada degan baan u sheegahayaa horaan idiin sheegay waana la kala dirayaa xildhibaanada waa mid la xiro iyo mid dalka laga dhoofiyo iyo mid la dilaad noqonaysaan baarlamaankana waa la burburinayaa waa horaan idinkugu sheegay wayna ku socotaa hadda waddadii bay saaran tahay waddadii aan sheegahayay ayay socotaa baarlamaanka in la kala diro waxaa kaloo idiin sheegahayaa khayra duufle ninka madaxa sabuulka leh ninka afka dhurwaayga leh ninka wejiga dhurwaayga leh ninka qaayinka ay jaajuuska ay jawaasiga ah tuugga ah ee booloxoofteynahaya ee shacabka magaalada muqdisho ku booloxoofteynahaya waxaan idiin sheegahayaa inuu idiin samaystay 4,000 oo ciidan ah 4,000 oo ciidan ah oo mas-uul ka yahay ninka la leeyahay bashiir goobe oo hubaysan guryaha mid in lagu soo galo hubkanana liga dhigo kii iswaalana madaxa laga tugto haddaa idiin sheegayaa kii iswaalana madaxa laga tugto siduu u qabsado magaala madaxda muqdisho uu gacanta ugu dhigo khayra duufle oo maamulka magaalada muqdisho banaadir state uu la wareego oo guddoomiyaha banaadir state uu ka noqdo khayra duufle waa idiin sheegayaa soomaaliya 40,000 oo ciidan ayuu diyaariyey waxaana 40,000 maamulkiisa gacanta ku haya ninka la leeyahay bashiir goobe iyo hubaysan oo guryaha xabad loogu gelahayo qofkii iswaalana dhafoorka laga tooganahayo hubkana laga gurahayo si uu idin maamulo uu xoog idinkugu qabsado khayra duufle idinka idin taallaa marka reer muqdisho idinka idin taallaa haddaad isxoraynayseen haddaad jiifaysaan haddaad hurdo macaan gashanaysaan iyo haddaad gumaysi diyaar u tihiin inuu khayra duufle idin gumaysto etoobiyana ay madax ka noqoto sare idinka haysato gelinka lixaadna nalaga dhigto taas ayaa maanta idiin cad dowlad inaysan jirin maamulna inaysan jirin dalna inuusan gacanta idinkugu jirin qarannimadina ay dhammaatay ay dhuntay waxa la yidhahda qaran la yidhahdana ay dhuntay hadii sheegayaa soomaaliya idinka idin taallaa marka saad isku xoreyn lahaydeen ee nimankaan isaga saari lahaydeen seediyaashii suukiin ah ee midka magaca idinla wadaaga idiin soo dilay khayra duufle oo gaangeystar ah ee gaangeystarada jawaasiga ay tuugada ah ee shisheeye u shaqayska ah ee raba cadowga gacanta dalkiina u geliyaan idinka idin taallaa saa isaga qaban lahaydeen marka ana waxaan idin oran lahaa iska saara waxaan leeyahay banaadir state iska saara waxa la yidhahda dowlad ma jirto
waxa la yidhahda maamul ma jirto waxa la yidhahda qaran ma jirto waxa la yidhaahda dal ma jirto iska saara banaadir isteedow ileen meelay ka xukunta male banaadir isteed unbay xukuntaa banaadir isteed bay xukuntaa meel kale ay xukunta male iska saaraa idin leeyahay iska saaraa idin leeyahay hadaad rabtaan inaad isxuraysaan gumaysi baan idiin soo socda iska qabta haddaad sixran tihiinna qur'aan isi saara haddaad sixran tihiinna qur'aan isi saara wadaaddaa joogee wadaadda u yeerta markee sixirkan iyo shadaadiintii odaygii qanyar ahaaba haddii sixir lagu yuururiyey fadhi ma yaallo reerkii murursaday hadday sixir la taagan yihiin sayna bilqan hadday sixir la taagan tahay ee odaygii qanyaraha hay sixireen sariir ku ururiyeen waxba u daahi mahayaan inay baarlamaanka iyo shacabka soomaaliyeed inay sixiraan waxba lamaha hadday idin sheegayaan odaygii qanyaro ahaa haddayba sixir sariir la saareen war ma yaallo reer murursade sixir bay soo wataan soomaaliya waxaa idin leeyahay banaadir isteedo waxaa idin leeyahay shacabka soomaaliyeed ee banaadir isteed ku nool qur'aan isi saara sixirka iska dulqaada heeryada gumaysiga khayraduufle iska dulqaada wuu idin caddeeyey wuxuu idin yidhi maxamed meesha waxba kama ah anaa meesha wax ka ah anaana isku kinkeenhaya anaana maamulka gacanta igu jira anaana idin maamulahaya isxoreeya marka isxoreeya iskana saara dowladdan dowlad ma ahan maamul ma jiro meelay ka talisay ma jirto waa laba jawaasi tuugo ah waa idiin soo shaqo tageen dalkii soomaaliya inay iibsadaan shacabkii inay xasuuqaan lacagtii inay boobaan dhaqaalihii inay boobaan canshuurtii inay boobaan iska dhaqaajiya marka isdhaafiya soomaaliya heeryaa idin saaran heeryada iska qaada marka waa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadayna